celinayaa allihii noo suurageliyay inay noo qabsanto xafladan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidkiina soo gaarsiiyay heerkan run ahaantii aad baa ugu faraxsanahay maanta dhammaanteen ardayda jaamacadda ka qalin jabinayso waayo waa maalintii aan sugaynay waa maalinkii aan ka qalin jabinay heerka koowaad ee jaamacadda oo na rajaynayno inaan u baasno heerka labaad waxaana leeyahay mal fadlu ilaa liahli alcilmi innahum lilhudaa liman istahdaa adillaa'u waqiimatu lmar'i fiima kaana yaxsinuhu والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم ولا ترضى به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء دفعدان ودفعدي الطوانات جامعة كسماية كقلن جبسة أرضنا ما أنت قلن جبنيسة واسقاشا يتضوى أرضي لحدا ويلالأ يسوبر يتضوى قبلها جودهان أرضنا جامعة كسماية كقلن جبسة لابد يكون يتضوى كي إلى هذا وشبقل اللحية الإسرائيل أرضي جامعة وهي حرير الله هاي وهي باطنة الله هاي جامعة كلها لدى أفريقيا إيشيا يوروب وهي كم تهاي أوروبا جامعة عربتها وهي كم تهاي أوروبا عن باريس إيست أفريقيا وهي كم تهاي أوروبا مدوغ جامعة صوماليا فين runtii maanta on qladka dhalinyarada iyo abnaadeena iyo gabdhaheena qalin jabiyay waan u tahniideynayaa alf mabruuk wa milyan mabruuk yaan leenahay waa maalin aan weyn oo aan u dabaaldegayno cilmiga kor yeelayno soo ilaahayba u kor yeelay yarfac illaahu alladina aamanu walladina utul ilma marka maadaama ilaahayba cilmiga kor yeelay waxay mudan yihiin abnaadeena oo maanta juhuudii faraha badnayd iyo dadaalkii dheeraa iyaga iyo waalidiintooda iyo jaamacad Kismaayaba ay bixiyeen in aan ay farxaan oo la faraxno oo u tahnideyno oo u hambaliyeyno oo u ducayno waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo masiiradiina cilmiga mid barakaysan fi xayaatikum alcilmiya walcamaliya dhinaca markii laga hadlayo horumarka jaamacadaha dowlad goboleedka Jubbaland 7 sano u dambeysay waxaa xaddiga kordhay jaamacadaha guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo ay guud ahaan Jubbaland ka jireen 7 sano ka hor 2 jaamacadood Jubbaland oo dhan maanta ay ka diiwaan gashay yihiin wasaaradda waxbarashada 6 jaamacadood oo jaamacadaha ugu tayada fiican ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland iyo guud ahaan koonfurta bartamaha Soomaaliya hambaliyada kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo noo fadhiya waxaan codsi u soo jeedinayaa maadaama ay bateen jaamacadihii Jubbaland badanayaan ardayda ka soo baxaysa jaamacadaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland guddiga shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalahaba in tixgelinta koowaad la siiyo ardayda wax ku barata gudaha dowlad goboleedka Jubbaland oo ay priority-ga koowaad yeeshaan taasoo kor u qaadi doonto in ay jirin arday ka hara dugsi sare markuu waxbarashada kaga haro arday aan drop gareen ardaydu badanaa waxaa dhacda niyad jab ayaa sabab u ah in ay waxbarashada ka haraan sidaa darteed mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa qodobka isaga inaad maanta aad tilaabada noo qaadid hadduu rabbi idmo aad guddigana amar noo siisid aad baad u mahadsantihiin hoolka oo kulul awgiis waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam maanta waa maalin qiimo badan u leh una hambalyeynaya bogaadinaya ardayda oo aan leeyahay waad bilowdeen maydaan dhammaynin macnihii waxbarashada qofku markuu qalin jabiyo bachelor qaato ama ma laha waxbarashadu meel ay ku dhammaato laakiin waxay leedahay bilow waxaan rabaa inaan dhallinyarada idiin sheego inay tahay bilow waxbarashadii aad wax ku tari lahaydeen waxaan kaloon aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oon u boorinayaa oo tusaale noogu filan gabadhii gabadheeda wadatay ee ardayadda ahayd ee qalin jabisay taasi oo soo afjaraysa inaan shaqeeyo inaan reer yeesho maya waxbarashaan ku jiraa waa wax sii fiican
inaad labadiiba isku wada weliba qoysku inay waxbarashada iyo shaqada wada galaan xataa way fiicanta aad baan arrintaana ugu hambalyaynayaa waalidkii halkan ka hadlayey ee ardayga ahaa ee carruurtiisa iyo isaguna ay waxbarashadu ku jireenna sidoo kale aad baan ugu hambalyaynayaa waxbarashadu waxaa doctoorka hadalkiisii iga raacay caalamku shalay meeshuu ahaa iyo maanta meeshuu joogo markaan taariikhda dhiganaynay waxaa laga hadli jiray xadaarooyin ilbaxnimadii Mesopotamia iyo Bershiya iyo xadaarooyin baa caalamka laga hadli jiray waxbaa la sheegi jiray sida maanta ay u guurtay xadaarooyinkaas la sheegi jiray kulligood waxay ahaayeen bariga dhexe Soomaaliya sida loo guuray iyo maanta sida adduunku isu qalibaya iyo sida loo waxaynayaay waxaan oran karaa jahligii baa intii la suureeyey yaa wuxuu noqday in waxbarashadii laga tago nooc jahliya si kale ay ummadda ugu dhacday gaar ahaan ummadda islaamka ahayd oo dareenkooda iyo waxooda dhan siyaalo khaldan ay wax u dhaceen waxbarashadu markaa asal waxaa mar walba marka laga hadlayo ama ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ha ka hadlo ama sifaadka dadka iyo waxa laga hadlayo qofka ahlul cilmiga ah iyo qofka jaahilka ah marna isku mustawana ma aha isku talana ma aha isku caqlina ma aha isku dareenna ma aha bulshadana isku miisaan kuma laha in cilmiga la barto markaa oo la nooleeyo oo waxbarashada la hamigeliyo oo kor loo qaadayo waa shay muhiim ah waxa kale oo iga raacay waalidka halkan ka hadlaya luqadaha marka laga hadlayay waa run af Soomaaligu meel adag buu galay luqadda Carabigaana iska daa wasiirku hadda wuxuu ku soo khatimay waxa ila quman buu yiri in shaqaalaha komishanka iyo loo sheego bal ardayda jaamacadda ka soo baxday inay la qiimeeyo oo shaqada iyo kulli dhalinyarada gobolka wax ku baratay lagu qiimeeyo nooc cusub oo gumaysi aan luqadda ku galay waan oran karaa nooc yaro cusub oo nadariyad iska inkaarana oo qofka haduuna malaha Kenya iyo wax ku soo baran meelahaas warku anaga seeraalaha iskuulka dadka waaweyn ba Ingiriiska lagu baran jiray waxbarasho muuna ahayn nooc ay noqonayso in dadkii loo tuso dareen ah in qaabka wuxuu jiraan waxbarashadu sidaas tahay waa fikrad khaldan weey waxaan ballan qaadaynaa waqtiga hadda teeramkan aan ku jirno inaan wax ka bedelo nooca shaqaalaysiinta shaqaalaha oo ay priority-ga yeeshaan ama wasaaradda ha noqoto ama komishanka ha noqdo shaqada iyo shaqaalaha in la siiyo priority ardayda wax ku baranaysa gobolka gudihiisa oo ay noqoto in lagu qiimeeyo waxbarashada ee aan lagu qiimaynin shahaadadiisu meesha ay tahay midda asalka waa middaas taasaa waxay tahay asal iyadaana waxay ardaydana u tahay waalidkana u tahay qof walbana u tahay midda wax gaarsiin karaysa waxaa naga fiican annaga waan rabaa inaan u hambaliyeeyo hay-adaha private sectorka shirkadaha oo yaqaana dadka ay shaqo geynayaan oo aan leeyahay inta badan waxay shaqo siiyaan ardaydii jaamacadaha ka soo baxday gudaha iyagu markaa ama ammaanadooda ha ku qiimeeyeen ama shaqo aqoontooda ha ku qiimeeyeen shirkadahaas waxaan aad ugu hambalyeynayaan u bogaadinayaa inay shaqo siiyaan oo ay dareensiiyaan ardayda wax ku baranaysa gudaha siday u shaqo siin lahaayeen iyo shaqooyinkii ay abuureen aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa jaamacadda Kismaayo horey baan uga hadlay waa jaamacaddii stateka mar baan sheegay waxaan horey u sheegay Jubbaland ma ina dhisanteen haddayna jaamacadda Kismaayo jirin ma ina dhisanteen haddii xaalad adag oo ay ku jiraan maamulka jaamacadda iyo aasaaskeeduba iyo xilliyo adag iyo duruufo adag oo soo mareen anigu xoogaal ka ahay dhismihii jaamacadda ee hadda ku maqan sida ilaahay xaalkeedu og yahay duruuftu ay keentay meel aan isugu nimaadnana ma aanan heleen meel wax lagu dhisana ma aanan heleen sidaa daraaddeed waxaan odhan karaa jaamacadda Kismaayo waxay founder u tahay waxay aasaas u tahay waxay hooyo u tahay waxay dhistay Jubbaland iyadaa dhistay waayo haddii la waayo gogasha wax lagu dhisay meel la isugu iman karaa haddii xeeladii la waayo wax lagu cunaa ma jiraan taas marka waxaan leeyahay
asal bay u ahayd waa midaan iyada iyo inta ku jirta aan ugu hambalyeynaya maamulkeeda waxaa xusid mudan sanadkan 97 arday inay ka qalin jabinayaan oo 37 ay gabdho yihiin waa wax fiican gabdhuhu aabbayaashuna way ka aaxan jireen laakiin maanta waxaan ilaahay mahadiya inay gabdhuhu iyagu isu hayaan oo wiilkana waxbarashada loo diro gabadhuna guriga ha joogto waxaan isleeyahay kiiskaas hadda waa laga soo gudbayo gabadhu iyadoo gabadheedii wadatay soo istaagtay reerkeediina way dhaqanaysaa waxbarashadeediina way wadanaysaa marka aabbayaalow gabadheeda wiilka midku anfici ilaahay baa ogi waxbarashadooda ha lagu dadaalo qofku inuu saaqido oo duurka joogana gabadh iyo wiilba waxaa ka fiican inay wax bartaan maanta Jubbaland intii dhismaheedii laga soo gudbay oo ugu mahad celinay jaamacadda Kismaayo aasaaska u ahayd in la dhiso waxaan hadda ku haynaa 27 dugsi oo sare oo ka jirta Jubbaland 189 dugsi hoose 6 jaamacadood 63470 arday oo u dareertay dugsiyada waxbarashada Jubbaland ku taala waa guul waxbarashada u soo hoyatay laba dugsi oo tababar macallimiinta oo Kismaayo iyo Baardheer ah oo iyagana muhiim u ah waxbarashada in la sii wado macallimiinta la sii helana wax muhiim afartii sano la soo dhaafay 3 jeer oo kamida jaamacadda Kismaayo waxay kaalinta koowaad ka gashay qiimaynta jaamacadaha dalka ku yaala halka sanadkii kalena ay kaalinta labaad gashay waa miisaan lagu cabiri karo oo looga hadli karo jaamacadda Kismaayo guud ahaan meelaha ay maraysaa sida ay tahay waxaan rabaa inaan hadda iyadoo hoolkan joogno kulul qiimaha anaga Jubbaland ahaan ay noo leedahay inaan aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanku way isu soo raaceen inaan xafladan ka qayb galay maziyad gaar ay leedahay oo jaamacadda Kismaayo iyo waxbarashada labadaba aanu siinayno marka xildhibaanada jooga iyo gudoomiyaha iyo kulligood waan idinka mahad celinayaa waan idinka bogaadinayaa iyo waalidiinta meesha kulul daraadeed waxaan rabaa waxbarashada aan saarno culayska ay leedahay waxbarashada aan siino muhiimadda waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ardayda jaamacadda ka qalin jabinaysaa marxaladii koowaad baad ka qalin jabiseen hore u sii wada oo gabadhu 3 dood iyadoo u dhashay ha qaadato PhD-da oo wiilku isagoo shaqeeya ha qaato oo waxbarashada la sii wado oo yaan laga daalin waalidkoodna ilmuhu intuu shareemo geli lahaa Facebook ku jiri lahaa cid kale macallin u noqon lahayd macallin fiican oo leedahay adigu u dirso oo waxbarashada kula dadaala shaqaalaha waan u sheegay jaamacadaha in la hormariyana waan ka hadalay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxay ku istaagay gabadhan asiyada shahaadada waxay samaysay ubaxa rajo soo celinta marka laga soo tago taariikhda ay ka soo bilowday inay ilmaha dhiman iyo kuwa dibjirka iyo kuwa suuqa joogantay soo ururiso waxbarasho u raadiso waxbarto guryahooda ugu tagto wax qof waliba uu samayn kara maaha aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxaa kaloo rabaa inaan uga tacsiyeeyo aabbaheed allaha u naxariistee cabdiqaadir isbacarte oo maalin dhoweyd dhintay iyadana waan uga tacsiyeynayaa horey jaamacadda uga baxday aad baad u mahadsan tahay